معالٍ 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 على مقديقي ويفتي شيء أقول maanta bishu shan tahayna waa maalintii macalinka waa maalintaydii waa maalintiinii waa maalintii macallimiinta adduunka oo dhan munaasabad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka macallimiinta Soomaaliland ee Solta munaasabadaas ayaa daaranayd xuska maalinta macallimiinta Soomaaliland waxaana ka soo qayb galay maamulka ururka macallimiinta Soomaaliland ee Solta xildhibaan Fuad Axmed Diiriye iyo waliba marti sharaf aad u tiro badan iyo sidoo kale macallimiin lagu soo marti qaaday munaasabadaasi intii munaasabadu socotay waxaa halkaasi laga hadlay macallinka iyo waliba qiimaha uu leeyahay waxaana halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ku hadlayay afka ururka macallimiinta Soomaaliland ee Solta xildhibaan Fuad Axmed Diiriye iyo waliba marti sharaftii kala duwaneed ee munaasabadaasi lagu soo marti qaaday waxaana ka mid ah hadaladoodii maanta waa 5 Oktoobar waa maalin macallimiinta adduunka oo dhan ay xusayaan inaguna macallimiinta adduunku maynu ka mid nahay waxaanu si gaar ah markaa u hambalyeynaa macallimiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland min gobol ilaa degmo meel kasta ay joogaan iyaga iyo xaasaskooga iyo caruurahoogaba waanu hambalyeynaa waxaana Ilaahay uga baryanaa in ay caafimaad qab ay ku noolaadaan iyo cizi iyo sharaf ay ku noolaadaan ayaan markaa u rajaynaynaa insha Allah runtii waxaan ognahay kaalinta macallinku bulshadeena uu kaga jiro macallinku waa halbowlaha iyo ubuucda ummad kasta oo jirta waxaanay ku xidhan tahay ummadaas halka ay macallinkeeda ka taagan tahay iyo sida macallinkeeda ay ula dhaqanto iyo meesha ay dhigto ayaa ummadda horumarkeedu uu gaarsiisan yahay runtii marka macallinku waa producerka waa qofka soo saaraya xildhibaankiibu soo saaraya waa qofka soo saara waa qofka dhakhtarka soo saaraya waa ka siyaasiga soo saaraya waa ka macallinka soo saaraya waa iftiinka ummadda si gaar ah waxaan u hambalyeynaa macallimiinta waddankeena goob kasta oo ay dalka kaga sugan yihiin macallimiinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku hambalyeynaa shaqada adag ee nafurka ee ay ugu jiraan maxay bulshadooda u hayaan iyo sida u barbaarinayaan dhalinyarada iyo daayarta ardayda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaan hambalyeynaa ardayda aan gacanta ku hayno runtii mihnada macallimadu waa mid aad u wanaagsan waana mid sharaf iyo karaamo badan waa mid qadarinteeda aad u weyn tahay marka munaasabadda awgeed ayaan maanta shirka u soo qabanqaabinay ka urur macallimiin ahaan si aan u muujino una weynino macallimiinteenna hadafka iyo ujeeddada iyo waxqabadka badan ee ay dalka u leeyihiinna u muujino maalintan 5 Oktoobar oo ah maalinta macallinka adduunka waxaan runtii hambalyeynayaa meel kasta oo macallinku joogo waa shakhsiga ka dambeeya horumarka uu gaadhay adduunku dhammaan macallimiinta xaasaskooga iyo caruurtooda iyo intay waxbareenba iyo anaga laftoodaba maalinta macallimiinta qadarin weyn ayayna wada haysaa ururka macallimiinta amba ururka shaqaalaha guud ahaan ujeedadiisu waxa weeyaan inaynu midayno cududa shaqaalaha guud ahaan dalkeena Soomaaliland bahdu doonaha noqdo ma macallin ha noqdo amba dhakhtar ha noqdo amba injineer ha noqdo amba dhisme ha noqdo xirfad kasta oo qofku yahay shaqaale oo uu shaqeeyo loo shaqeeyo sidoo kale shaqaalaha sidooda u madax bannaan ee non formalka ah iyaguna waa urur shaqaale dhammaan intaa waxaan u taaganahay inaanu midayno cududeena si aan u hagno xuquuqdaynu leenahay aynu hadlo maanta kale macallimiinta kale in laga hadlo xuquuqda ka maqan waa waajib innaka dastuurkeena qodobka 23aad ayaa ina siinaya inaan urur shaqaale isku abaabulno inagoo madax bannaan oo la shaqeeyo weydiin loo shaqeeyo waa wasiiriyada dawladda iyo xukuumadda urur ma samaysana inakoon oran ayuu dastuurkiina siiyay inaan urur shaqaale samaysano ugu horeyn dhammaan macallimiinta runtii marka hore waan u ducaynayaa oo waxaan leeyahay intii waxayna soo bartay iyo waxa weeyaan inta imikaba aynu ka mid nahay ummadda wax barta waxaan leeyahay Ilaahay ha barakeeyo Ilaahay cimriga caafimaadka baa u barakeeyo intii dhimatana Allah u naxariisto maanta kale waa maalmaha la isu yimaado iyadoo la xusayo
dowrka uu kaga jiro baruhu ama barbaariyuhu horumarinta waxbarashada iyo garaadka da'yarta iyo dhalinyarada isla markaana horseedaya mustaqbal bulsho ka caafimaad qabta dhammaan wax kasta oo taban oo reeban oo sharciyada islaamku aanay noo ogolayn waxaan soo jeedinayaa dhammaantiin in aynu ka warhayno oo aynu iskaashano barayaashii tacliinta dugsiga hoose dhexe sare ee ka fadhiistay shaqada ama gaadhay da'dii talaxgabka iyo kuwa ku soo dhowba inaynu xusno oo madalahan oo kale lagu xuso lagu maamuuso innaga oo markay munaasabadan oo kale tahay ku soo dhaweynaynaa sidii barahii halkan ka hadlay ee 46 sano ku jiray mihnada wax dhigista marka maanta oo kale waa maalintii iskaashiga maalintan runtii waa maalin aad u qiimo badan waxaanay ku suntan tahay qof qaali oo ugu qaalisan dalkeena waxaan leeyahay dhammaan macallimiinta qaranka Soomaaliland hambalyo ayaan idin leeyahay waxaan ahay xildhibaan u taagan bahda waxbarashada gaar ahaan walaalaha macallimiinta ee ugu qaaliga har iyo habeenna insha Allah haddii ilaahay yidhaahdo wixii karaanka iyo wixii awoodda aad iyo aad baan ugu taagnaan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo maalinkan maantaana waa maalin weyn oo aniga dareen gaara iyo xambaarsan waa maalintii macalinku waa macallinkii adduunka insha Allah haddii ilaahay yidhaahdo aynu ku salin nabigeennii macallinkii ugu weynaa calayhi salaatu wasalaam waxaanan filayaa inaynu risaaladii u wada sidno oo hadday tahay maadi hadday tahay diiniba in waxa weeyaan jahliga ummadda lagala dagaalamaa waxa weeyaan waa wax weyn if iyo aakhirana waxay noo soconaya ajar baa noo soconaya ururka macallimiinta Somaliland ee Solta waa mideeyaha horumaryaha iyo hiilka macallimiinta Jamhuuriyadda Somaliland midnimadu waa horumarkeena ururka macallimiinta Somaliland ee Solta waa codka macallimiinta Jamhuuriyadda Somaliland ka qayb qaado dadaalada lagu horumarinayo macallinka Jamhuuriyadda Somaliland